muuna cumar waa 23 jir 13 sano oo ka mid ah nolosheeda waxay qabtay xanuunka dhimirka muddadaasi waxay ku noolayd nolol la oran karo waa nolosha nolol ugu adag oo ay ku gadaaman yihiin duruufaha nololeed kuwooda ugu adag waxa ay ku nooshahay xaafadda State House-ka oo ah meel ay ku midoobeen dadka danyarta ah ee badi ku nool magaalada Hargeysa 7 sanadood ka hor xaaladda iyo nolosha Muuna waxay ahayd mid ka gedisan sida maanta ay tahay waqtigaasi waxay hooyadeed ii sheegtay in Muuna ay la kulantay dhacdo foolxun oo ah dhacdooyinka ka yimaada ama ay ku kacaan kooxaha dhalinyarada qaarkood ee dhaqan xumada caanka ku ah hayeeshee duruufo xilligaasi istusay Muuna hooyadeed waxa ay ku qanacday in arintaasi aanay noqon mid halkaasi dhaafta baahida iyo duruufaha nololeed ee qoyska ay ka soo jeedo Muuna waxa lagu dabari jiray ama lagu dabooli jiray shaqo kooban oo markaasi ahayd iibka caanaha oo ay gacanta ku haysay Muuna hooyadeed sidoo kale waxa caawin jiray wiil ka mid ah wiilashii qoyska oo isagu muddo kadib geeriyooday taasina waxa ay sababtay in culayskii qoysku uu isugu soo ururo hooyo Ruqiya mar kale waxa soo food saaray geeri kale oo naxdin leh magacayga Saddexan Xaliimo Maxamuud Daahir baan Muuna maxay tahay Muuna waxaan ahay habaryar ruma walaashay baa dhashay Muuna goor ma xanuunsatay Muuna xanuunsatay 12 jirkii 12 jirkii ku xanuunsatay imikana waa 23 jir waxay xanuunsanaysay 13 sanadood ayaan xanuunka qabtay xanuunka qabtay dhakhtar ma geysay dhakhtarin badan meel walba aan la maray wallahi waan la dhib mudanay mar dhaweed qalliin bay gashay haddana qalliinkii baa lagu celinayaa baa la yiri Itoobiyaanu geynay Itoobiyadana waxay tir bal horta dib baa loo dhigayaa dawadaas lagu hubinayaa saay noqoto xagga madaxay noqotay meel walba waan la maray inta dhakhtar Hargeysa joogto mid walba waan la galay dawad isbedelo hagaagsan kuma hayno kii ka maxay ahaydeen Itoobiyana waanu ka keenay tii madaxa iyo tii calooshaba uu soo siiyay wax ku sii kordha mooyaane waxa ay ka dhacam hayno waxaan ku weydiin lahaa Muuna habaryar baad tahay hooyadeed way dhimatay goor way dhimatay imika waxay sii moodantay ilaa sanad iyo 4 bilood meelaha mas'uuliyadda waxa loo wareegtay markii hooyadeed dhimatay kulkii hooyadeed dhimatay aniga dad ugu xigay habaryarteed aniga loo wareegay maxaa ku dhacay hooyadeed sidee dhimatay markaa hooyadeed wallahi way xanuunsatay madaxa isku dhufatay sayida u haysay bay dadna maxay dawaqday sidaba ku dhimatay warwarka walaaca iyo walbahaarka nololeed ee soo food saaray waxa uu noqday mid galaaftay imaamadii dhashayna ay si lama filaana isugu daldasho bartamaha guriga xilli habeenimo ah taasi waxay noqotay mid qof kasta oo islaam qalbigiisa dhaqaajisay mid qof kasta oo bini aadana qalbigiisa damaqday qof kasta waxa uu dareemi karaa duruufta iyo nolosha ay ku nooshahay Muuna oo ah mid ay sababtay amaba ay saameysay in hooyadii dhashay Allah u naxariistay Ruqiya ay ku geeriyootay goobtan iyo aqal Soomaaliga ahaa ee aynu ka soo baxnay xaaladda hooyo la'aanta oo ah mid dhibaatadeeda leh markaad eegto inan yar oo noloshaasi ku soo barbaartay ama ku soo kortay marka ay weydo waalidiinteed gaar ahaan hooyadii dhashay waxa dareemi kartaa nolosha iyo dhibaatada ay ku sugnaan karto inkastoo oo dadaal fara badan ay u gashay habaryarteed oo ah isla hooyadeed haddana waxa jirta kulay qof kasta oo bini aadani waxa uu dareemi karaa kaalinta ay maamulku ugu jirto tani waxa ay ka turjumaysaa nolosha iyo dhibaatada dhabta ah ee walaasheen ay ku sugan tahay muddada inta leeg malaha cid kale oo markaasi nolosha ka caawisa markaad eegto duruufta ay ku sugan yihiin dadka kale ee la jiiraanka ah ee ay kula sugan tahay halkan ama bulcatan magaalada Hargeysa caanka Muuna in badan iyadoo aan jaarin ilaa 18 sano ka war xaaladeeda maanta xaaladeeda Muuna dawaadiga arkay iyadoo yar xuskeedii Ilaahay ka qaaday hooyadeedna way isdaldashay maalin Rabadaan walaalkeed uu ka horeeyay hooyadeed ka sii horeeyay habaryarteeda baa hayso meesha ku haysta iska dhibaataysan tahay Muuna kol caloosha laga qalay dhakhtarka weyn baa la dhigay haddana waxba wata inay ka sii tarto mooyo waxba Ilaahay uga ma aabayn maxaad umada islaamka fariin waxaan oran lahaa cid caawin karaysa Ilaahay darti muslim baynu wadanahay loo caawiyo Muuna
muuna imika 2 sano ayaan jaarnahay xaaladeeduna inay ka sii darto mooyaan kama soo reynayso imika ayayna ugu daran tahay qaliina ay gashay waxaad muuna markaa bal muslimiinta iyo dadka kale ehelka aad u sheegaysaa waxaan muslimiinta iyo ehliyadaba u sheegaya inay il naxariis la ku eegaan oo wixii ay tari karaan ay soo taraan safiya maxamed muuse waxay ka mid tahay dadka ka agdhow muuna cumar waxay ka mid tahay dadka aanu dhab ahaan oran karno waxay ka iftiimin kartaa xaaladda nololeed ee muuna ee maanta shalay iyo intii ay nolosheeda halkan ku noolaydba safiya waxay ku haysataa meel agteed ah meherad yar oo ay markaasi nolosha kala soo baxdo hayeeshee waa dadka dareen ahaan la soo dhaweeyey ee og xogogaal iyo xaqiiqada dhabta ah ee ay muuna cumar maanta nolol ahaan ku nooshahay ugu horreyn waxaan ku weydiin karaa bal hadda waxaad iga warantaa sida ay tahay xaaladda nololeed ee muuna ilaa maalintii aad baratay ilaa maanta hooyadeed caanale bay ahayd deetana hooyadeed baa caagada daba wadan jirtay oo daba socon jirtay inantii yareed marka ilaa 10 jilka meelaha ay gaadhay waxay noqotay inan xagga xiska ay noqotay inantii kabacdina saysaantii isaga wadan jirtay ilaa qaangaarkeedii intii isaga wadan jirtay hooyadeed fikradda yacni meel kasta oo ay marisay iyo dhakhtar kasta iyo maalinkan maanta meel kasta oo caafimaadkeeda iyo dhiman adduunka oon ka baaray oo ama dhakhtara ama sheekha aan geyn ma jirto markaan iyada aan la hadalno inantii ka waran markaa muuna qadarka ilaahay baa saan qadiray isaantuna siday ugu samirsanayd isaan aad u samir badan ay ahayd aad maxay ahayday aydsan xagga ilaahayna aad u aydsan bay ahayd markaa la ka waran waa amar alla weeyaan alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan ahay noolan jirin علشان iyada mid u gaaro iyada ku gaaro fikradaha ku gaarka mooyaane dadka af wanaagsan ay kula hadli jirtay inantii ilaa gashaantigeedii sidii ay isu daba waday ay maxay ahayd xaaladeediina ay ka soo dami weyday waxa dhacday inaan yaro dhashay inuu beeta haddana intuu faras ka jaray markiiba taytana markiiba ay nafta ka dhacday iyada xaaladeedu taas ugu sii biirtay bay haddana inantii siday u godatay ay caanaha ula doojiyeysay bay islaantii waxa ku dhacay haddana fikir waaliyada ku dhacay iyada waalatay haddana islaantii waalatay iyada inantii yaro jiidanaysa iyadina isku dhufatay kabacdina iyada sidii isugu dhufatay way suuliga ku gurtay wixii ay lacag yar lahayd ama moobil lahayd ama gabi lahayd ay suuliga ku gurtay kabacdina meel lagu xidhaan ma jirto tii ay haysana way waalantay iyadina way waalatay qadarada ilaahay kabacdina sidii ay u soo jiitanaysay ay saanta waalidii haddana isaga sii jiidanaysay inantii hooyadeeda caadana way haysay oo maxay ahayd iyaduna markaa guriga u dhex wadnayd isaga soo jiitanaysay habeenada kamid ah iyadina aqalkii intay islaantii isula gelisay inantii aqal ku wada ooday buul yar oo dusha kaga xidhay bayadana buu adlaa isku ooday xargiisa sudhay weetana markii si ay dhigiyo dadkii ay yimaadeen inaan cidi ka dambaynin iyadu si amarada ilaahay da fikirkii badnaa iyo iyadaba waalidan ku dhacday inaan qof hagaagsan iyadoo ma ahayn awgeeda isku dabtay ayaa deetana qadarkii halkaa uu ku helay markaa inantii yareed baa meeshiisa soo taagtay jaarku u wareeyey waa loo aad baa wallahi loogooda murugooday waayo qushi iyadoo waalanba intii ay waday dee haddana qof yara u dhagay deetana inantii yareed cidlo ay ku soo dhacday inan yara walaaliyiin baa jira inankii yaraaba isla yidhaahna waxba ima dambeeyaan ilaahay ka cabso waaninay jaarkoo dhan baa waaniyey meel kasta waan ka waaniye cid kasta waa caqli celisay waxba hooyana ilaahay baa ku lahaa adigana ilaahay baa kuge maanta inanta yar wixii aad u qaban karto maanta u qabo kabacdina inantii aqalkoodii iyo baroodii baydkoodii lagama kaxaynin islaantii hooyahaydna ka yar kadib iyana iska dhimatay inantii ehel iyo arqab islaan u habar yara oo looga yeedhay miyi iyo ehel yar qaba oo iyaduna aan camal haynin kabacdina aduu inantii yareed sidii unbay xaaladeedu ay u cakiran tahay wixii dee muslim islaamiyada ama ka naxaya ama ka danqanaya in dee wixii ay u qaban karaan ilaahay dartii ilaahay xaggiisa gargaar ay kaga dhawaan karaan dee inuu qabtaan imananu rajaynaya insha allah u baahan tahay ee aad muslimiinta aad u furaysaa waa mid intee leeg baad u malaynaysaa waa mid aad u xada weeyaan intay u qaban karaanba waxaa la wixii muslim islaameed meel kasta ay joogaanba inantaa yar aabba lahayn hooyo lahayn ehel lahayn arqab lahayn waalan shabaabka ah insha allah bismillaahi karim ilaahay wuu ku gargaari doonaa iyagana oo maalinka maanta iyagana waxu qabtaan inantaa haddii ilaahay muuna cumar sidaasi aad arkaysaan xaaladda dhabta ah ee nololeed ee ay ku sugan tahay waa taasi aynu arkayno hadday noqoto mid dhaqaale haddii ay noqoto mid hooy ama hanti ahaan ama guriga ay ku nooshahay
haddii ay noqoto dhaqaalaha gacanta loogu hayo amaba hoyga ay magaalada Hargeysa ka degan tahay oo darkaysaan duruufaha nololeed ee ku xeeran wallaahi duruufta dawa nagu adag tahayo markaan dawadeeda camal ma hayo markaan dawadeeda eego ana meel walba waxay ku macaan tahay inaan midnimo la gasho markaan eego dhaqaalaheeda wixii nafteeda lagu nafaqayn lahaa lagu dhaqaalayn lahaa dawa ugu adag tahay kulkan amal fiican haynin dawa ugu adag tahay oo amba dawadeeda ka dabaalan kari lahayd amba dhakhtar weyn oo caadi ah geeyan ka dabaalan kari lahayd amba waxaan ka dabaalan kari lahayd nafaqadeeda wixii aan ku nafaqayn lahaa way nagu adag tahay oo ay wadanka arko oo malaha maxay ahaydeen meelaad ku haysid iyo meelaad ku faalashid iyo meelaad istaajisid midna ma haysano rasuuligu u buuxsamay kadin laga baxa iyo kadin laga soo gala xaafadu malaha waa nagu ciriiri sida kolkay u beedo waxa ku dhacaysa maalba ka shaqeynaysa ka dhacaysa ma gargariyo dabka halka yaala ayaan isku dhici garnay dam ku leedahay waa ku daawanaysa oo muslimiinta Soomaaliland u badan oo Soomaali oo dhan u badan muuna duruufteeda adag gacanta ku haya 13 sano xanuunsanaysay hore ayay bulshada ay nagu soo bandhignay inan hoodo la yiraahdo Ilaahay ka kisaayay ayaa dhowr sanadood dhaqaale u soo diri jirtay intii ay hooyadeed noolayd muuna xaalkeeda maanta waan dareemi karnaa qalliin bay gashay caloosha ah duruuftaas oo dhan dad baa ku daawanaya bulshada ku daawanaysa fariinta aad u dirayso ee aad ka codsanaysaa maxay tahay fariinta ugu daran waxa weeyaan laba hal baa ugu daran dawada xanuunkeeda laga caawiyo maxay ahayd dhakhtar weyno xanuunkeeda bal wax ka garta loola geeyo laga caawiyo iyada oo meesha nalooga jeeyo anaga meesha meel naga daran kadin laga soo bashan 100 oo qoys oo kadin laga baxo iyo kadin laga gala lahayn bal qofka waa awaalanad ku dhaxaysatid adigu ta ka waran maxay ahayd banad uga baxda ma haysatid jagaale aad leedahay guurtid ma haysatid awooda jaga ku haysatid ma haysatid maxay ahayd la ilaaha maxamed rasuulullah baan taaganoo la taaganahay adiliga darteed dhibta amba sababta duruufahaneeda dawadeeda iyo maxay ahayd dhakhtar geynteeda iyo hawsheeda Muna Umar waxay xaq u leedahay in ay nolol hesho waxay xaq u leedahay in ay caafimaad hesho waxay xaq u leedahay in ay hesho hooy iyo goob ku haboon nolosheeda waxay xaq u leedahay in duruufteeda nololeed ay dawladdu damaanad qaado hayeeshee boqolaal qof oo Muna lamida ayaa ku dayacan guryaha noocan oo kala ah ee ka dhisan magaalada Hargeysa noloshan waxaynu ku tilmaami karnaa ama aynu oran karnaa waa Hargeysada qarsoon ee ku taala magaalada Hargeysa waa goobo aan la is ogeyn ama aan laga sheekeyn karin in xaaladooda nololeed ay tahay halkan aynu ka sheekeynayna ama aynu taaganahay oo noqonaysa mid dhinac kasta ciriiri ka caafimaadka waxbarashada biyaha dariiqa jidka iyo noloshu waa mid ku adag bulshada halkan ku nool waxay halis ugu jiraan xaaladaha kale ee sida degdega u dhaca ee uu ka mid yihiin masiibooyinka dabka waxaa jirta nolol fara badan oo aan hubo in maanta haddii aad State House-ka gudihiisa gaadho aad ugu tagayso boqolaal kale oo xaaladda muuna ku sugan tahay mid lamida ku sugan hayeeshee waxa maanta aynu diiradda saaraynaa inaynu si wadara ugu gurmano walaasheen Muna Umar oo u baahan inaynu u fidino gacan muslimnimo mid walaalnimo iyo mid damiirnimo intaba waxaynu u baahannahay in nolosheeda aynu isbedel ku sameeyno oo aynu uga gurmano xaaladda nololeed ee maanta ay ku sugan tahay xaaladda Muna wallahi aad bay iskaga xun tahay dadka deejaarka la xaafada dhexdeeda kula nool baan nahay xaaladeedu wallahi aad bay waxa ku xun tahay waxaan dadka muslimiinta ka codsanayna dan iyo dibadda wixii caawin karayaan taageerana ee kolkoodna baaxna iska xanuunkeedu maskaxda imkana xaaladeedu aad bay u sii xun tahay waxaan ka codsanayna dan iyo dibadda intii magaca sawirkeedii muuqeedii maqalkeedu gaadheeda in lan taageer la soo caawiyo ku celcelinayna 100% حاضر والله مهم كوي أدوليته وإهلنا ملك كلهان ويدد واسكح وسنتي يعني بنتي ويستي شيء هذين كان لعبوا بسوري نوح كل يوم كتشبيه أنا كيف شقين شري أنت ما وجيري لوال مركا أنت ما واسكوا عرض وأول جيش لم تعين تسينك مركا واحد ضدك شرفت لهم وحي مسلم أولا بجد كده وحي شوقا أو سوق المدن إن أنت عمونا هذا يرله وحد ما يهين العاصير يعدوا ولا بعدين العاوية أنت عمونا هنتي اللي عاوية ولا بانت وأنت ماشي كل شيء واللي بس يروح بقى مسلمين تدمد شوقا إذا كده لم يتعب بس كده صدق صار كنا 60 أنا واحد اللي ما أنت بعمونا مونا إذا قال خسارة
muslimnimo taasaa naxariis ku jirtaa intaan hadda labaan laga waa naxariis waxaan u mahadnaqayaa halkan mar labaad iyo mar saddexaad baa uga mahadnaqayaa rabbi ha ka siiya ajar iyo xasanaad dheeraada walaasheen hooda maxamed yuusuf oo ku nool waddanka ingiriiska oo muddo 2 sanadooda gacanta ku haysay munayar waxaan leenahay ilaahay miiska xasanaadka ha ugu daro insha Allah dhammaanteedna waxaynu u gurman doonaa oo aynu soo wada tafaaxiidan doonaa in maalinta ku xigta insha Allah aynu isugu iman doono wixii aad ku soo tartaan muuna oo nolosheeda wax weyn ka bedelay